أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. waxaan ka jawaabayn su'aalihii emailka noogu yimid. Su'aashan gabar ayaa soo qortay, sheekh waa ku salaamay tiri. Su'aasheeda haddaan soo koobo waxay leedahay, sheekh waxaan ahay xaas, ninkayga waa nin aad u naaga jecel, anigana waan maseer badanahay. Marka kadibna waxaan ku xujeeyay, waxaan iri si aan ku ilaalsado haddii aad waxaad igu tirahaa haddii aad naag la hadashid waa iga furan tahay. Marka maalin kale markuu saas yiri kadib muddo kadib aan naag ku qabtay tiri oo soo la hadlayo. Marka hadalkaasna marka waa ka furanaan ku iri, asagna wuxuu leeyahay kuma dhihin. Marka ku adkaystay, marka anaa shaki igalay tir hadda waa ku furaa mu yiri mase waa ku furay. Marka xukunkeena muxuu noqonayaa? Asna wuxuu ku adkaysanay aniga saas kuma dhihin. Bismillah. xaqiiqatan marka hore waana ayaa halkaan rabaa inaan kaga soo jeediyo labada isqaba. Furinka wax ciyaar maaha lagu ciyaaro, adigana inaad ku xirtaa markasta. maxaa yeelay hadda waxaa tiri ninkaaga hadduu la hadlo, naag hadduu la hadlo, marka naag waa la hadli, biniaadanka meel kuma qofulna, waa la hadli karaa. haddaad dhihi lahayd haddaad naag kale guursatid oo ficil oo aad ku xiri lahayd wax ficil ah oo sameeyo oo guur camal ah, laakiin qof wuu la sheekaysan karaa, nin wuu la sheekaysanaya. marka waa iska nidaamka uu social media u maleynaya. maseerka markuu xadkiisa dhaafo waa mushkilo, hebel ha la hadlin, hebel ha la yeelin, saas inuu ahaada maaha. laakiin marka qofku wax cad uu yidhaah calaqale gabadha inay ka maseerta maaha waxaan jirin, haddii maseeraysan wax cad inay ka maseerta asal ah. marka inay tira hadal dadaa sheekaysan kara oo wax dhex mari karaa. laakiin haddaa sideeda aan u dhigo oo ah sidii fuqahada u dhigaan u ah, haddaa ila guursatid waxaad tirahaa waa iga furan tahay. marka ninka gabadhaas hadduu la guursado ma ka furmaysaa mase ma ka furmayso, waa masalada meesha halkaata. dabcan halkan waxaad moodaa talaaq almucallaq wey. talaaq almucallaq, talaaq mucallaqana sidiisa xugun gaar uu leeyahay. qofka hadduu wixii uu mucallaq caleyhi wixii lagu xiray hadee dhacaan waa furmaysaa gabadha. مثلا ninkan wuxuu yiri haddaan gabar kula guursado waa iga furan tahay. qowlka jumhuurta culimada oo fuqahada arbacada ku jiraan, xataa fuqahada almadahib alarbaca waxay qabaan hadduu maalinku xaas kala guursado xaaska hore waa furmaysaa. maxay shardiga ku callaqa ayaa dhacay markii laga reebo sheekh islaam ibn taymiya oo jira arrintaas dhaar ayaa loo xisaabaya, kafaara laga rabaa. laakiin qowlka raajixa ah waxa weeye gabadha haddii uu xaas ninkii ku yiraahdo waxaas haddaan sameeyo waa iga furmaysaa, waa furmaysaa. hal arin ayaa la kala qaadaa culimada. طلاق هدو أفك اللي يراه يمركي لقرأ ولا كان قاعدة أيضا. مركي أفك وكيراه ويراه هدي عاد أن إسلام كلو كلو جورسدو وعيق فرنت هدو يراه ما نك إسلام كلو جورسدو قبل أسوأ فرميسا. دلقة دلخل دلقة دعيس. مركز دو صون نقصنا مركز أسهل وتالوا مركز وحاسكي صار لكن دلقة أسوأ دعيسة. مسألة ذكرة oo la kala saaro waxaan yiri hadduu qoraal yahay. مثلا laba isqabay ayaa midna magaalo joogay, ninka magaalo kale joogay, magaaladu joogay inuu ninku ay ka shakisay gabadhii ama waxay isku qabsadeen. markaas uu xarqad u soo qoray, wuxuu yiri haddii inta zawajtu alayki, haddii aan kula guursado waa iga furan tahay. warqada uu soo qoray. ولذلك طلاق oo kitaabada ku yimaad oo qoraalka ku yimaad min baab al-kinaya xisaabaan culimada qaarkood. kinaya waxa la jeedaa طلاق laba oo kala baxa, mid sariix ah oo afka laga yiro cad waa ku furay cad, mid la qoray. marka qoraalka markasta waxaa loo xisaabi karaa bacd ulama waxay qabaan inuu sarbeeb uu yahay. sarbeebtana niyo u baahan tahay, marka niyo ay u baahan tahay. hadduu qofku oo qoray u jiraaho saasa ula jeedo saa un qora ula jeedo niyadeeda saas ay talaaqay noqonaysaa. hadduu yiraahdo laakiin niyadeeda furinka ulama jeedin aniga waa iska qor arrintan oo dad waxaa jira oo wax iska baashaalay wax isku qorqorayo. marka qoraalkaas kinaayada bacd ulama aydan halkaas qolkaasna uu jira. marka waxaa leeyahay laakiin gabadha mas'aladii hadda sheegayso mas'ala kalaba. mas'alada ana ina tawdiixiyo furinka ma dhacaad ahayd. mas'alada laakiin fiqigaas kuma dhisneed. su'aashaad waxay ku dhisan tahay gabadha iyo ninka hadda isku qabsadaan furinka yaa qolkii la qaadanaya. furinka waxa iskala ninka Ilaahay u tiiriyay oo khitaabka oo ida talaqtum nisaa markasta wuxuu ku socdaa ragga la hadlaya. marka ninka wax furay iyo gabadha hadii iyagoo qol ku jiro
ونك ويراه وكفر ومركي قال له يمادن ويراه بنتي دوما فرن aniga maxaa yala amina gabadhu waxa leeyahay markaati keenso waa marka dadka halkaas waxay ka qaldamaan waxa leeyahay dadku waxay dalaaqa goormo markaati u baahan yahay markaati wuxuu u baahan yahay markii la isku inkiro oo ninka wax furo uu aniga wax ma furin ay gabadha dhahays waa lee furay laakiin ninka hadduu qirsan yahay oo inkiraad la wadaan gabadhan furay waxa weeye al-iqraaru sayyidul adilla la markaati ma loo baahna markaas marka dadka waa isku qaldaano waxay leeyihiin gabar markaati aan ma furantahay dhahaaya markaataan waxay furmaysaa ninka hadduu qirsan yahay inuu furay hadduu ninka inkirsan yahay laakiin markaasaa markaati loo baahan yahay xaalis inkaar markaati loo baahan yahay saas daraadeed gabadhan hadda waxay leedahay ninkii wuxuu igu yiri aniga saas kuma dhihin naag haddaan la hadlo hadal ay bitiri hadalku waa adag yahay hadalka qof kulul hadlaa furin degdeg ku dhici karaa naag haddaan aan guursado haddii ahaa lahayd xataa waa si dheeraa lahayd arrinta waan sheegnay gabdhahan waxaan dhiri waxyaabaha yaryar iyo masaarka ku xiran wax weyn ku xiraan masaarka haddii wax ku xirayaan idan halkaas waxaa ka cad marka ninkii iyo hadalkiisa la qaadana waxa la yiraahdaa haddii isku khilaafaan gabadha iyo wiilka ninkii is qaba haddii isku khilaafaan waa ku furay iyo maya ma ku dhihin furin fal qawlu qawlihi dhahan qowlkiisa la qaadana ma aha inay gabadha oo karun badan ma laakiin istisxaab al asl waxa la loo raaca maxaa waaye asalku waxa loo ogaa labadan qof inay is qabeen oo markaatiyaal qabeen waa is qabaan al isku uwa marka furinkii la isku khilaafay oo cidna loo tiiriin lama haayo kan idima been sheegayso usma been sheegayo ma waxa li asalka loo asalku maxaa waa is qabeen marka waxa li oo ku qabiya laakiin ninka ilaahay inuu ka cabsado way marka ninka hadduu been sheegay gabadhaas مثلا dalqadii ugu dambeysay ka ahayd oo inuu xaram inuu kula joogo rabo gabadha dambiga asaa ku jiro iyada kuma jirto asaga ilaahay inuu ka cabsado lidalika waman yattaqillaha suuratu talaq dhamma harkaysa waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja war ilaahay inta gabadha xaram kula joogo leed inaad ka furto ilaahay mid kale ka fiican ku saana laga yaaba intaas dhis canaad ragga qaarkood gabadhan dib in islahan waa ku qaba oo been inuu yiraaho oo islahay ku xirnaato meel laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala makhraj mufuraay ayama walidalika markay masalada ay markaati ilaahay ragga waxa laga rabaa taqwa ilaahay laga rabaa gabadha markay uur iidana leedahay taqwa ilaahay laga rabaa markay cid tirsanayso iidan oo inay ciidadii ka dhamaan waa iga dhamaatay inay tira ama iido oo ciidada ka dhamaatay wili ma dhamaan ay tira iido rabtay inay ku dhaqato walidalika masalada furiinka taqwada ilaahay waa man yaj'aluhu amruhu yusra uga dhigaata makhraju u sameeyna waxa soo dhan waxa laga hadlayaa inuu ninka ka cabsado laakiin xugun ahaan gabadhaas waxaan leeyahay su'aasha tan soo koobo maadaama ninkii uu ku leeyahay aniga saas kuma dhihin fal qawlu qawlqiisa jiro ما إنه كرون بدنيا مركن نكا وكوقبا ولي نكا سبحان الله إلهي كبق هدات تري أو أدنى وحين أسميسي كبد فرين كيد وكادي عن قولك أو جمهور كان رجحيا مركزته ولا يابا علماء كله إن الرجحيا قولك الشيخ الإسلام ابن تيمية أو أحضار إيو اللجيء وكفارة لقرباء إيو لكن قولك سنة رجحيا وحدان قلد نفسي ذي شدانك أهاتي هدان سحن توفيق لإلهي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.